kumanaan ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ayaa maanta iskugu soo baxay ilaa 10 goobood oo ku yaala gudaha magaalada Burco si ay ugu soo tukadaan salaada Ciidul Fidriga. saaka subaxnimadii ayaa waxa ay dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ay ku waabaristeen dhawaaqa takbiirta iyo waliba sawaxanka codbaahiyaha waxaana ay bilaabeen inay u dareeraan goobaha salaada iyagoo ku gaashaaman hugooda noocyada ugu muhiimsan. salaadan Ciidul Fidriga lagu tukaday gudaha magaalada Burco ayaa waxa saaka ugu muhiimsanayd amaba ugu dooroonayd goobihii lagu tukaday garoonka kubadda cagta magaalada Burco ee Alamsa Stadium iyadoo ay kala soo qayb galeen dadweynahana madax ka socota xukuumadda Somaliland madaxda maamulka gobolka iyo waliba duqeyda iyo culimada gobolka Togdheer. wasiirka wasaaradda kalluumaysiga Somaliland oo kamid ahaa madaxdii ka soo qayb gashay munaasabaddan Ciidul Fidriga Burco Cabdillaahi Jaamac Ismaan Galjira ayaa waxa uu halkaasi ka soo jeediyay khudbad dheer oo ku tacalluqda munaasabaddan Ciidul Fidriga sidoo kale waxa uu xusay kuna wargeliyay dadweynihii goobtaasi ku tukanayay inuu uga jeedo madaxweynaha Somaliland hambalyo ku tacalluqda Ciidul Fidriga. waxa kale uu ugu baaqay wasiirkani dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco inay ilaaliyaan midnimada iyo waliba wadajirka guud ahaan dalkan Jamhuuriyadda Somaliland. sidoo kale gudoomiyaha gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi ayaa isaguna ugu baaqay dadweynaha Burco inay ka qayb qaataan gurmadka loogu jiro dhinaca abaaraha iyadoo duqa Burco Maxamuud Axmed Xasan Dhagalaabna uu qeyladhaan kulul ka muujiyay sidii loola tacaali lahaa dhuxusha iyo waliba shaxnadaha la halmaala. fariimaha kaliya ee munaasabaddan ciida laga soo jeediyay maanta oo aan ku koobnayn intan mas'uuliyiinta dawladda ayaa sidoo kale iyaguna waxaa ka mid ahaa culimada gobolka Togdheer oo iyagu door muhiim leh ku lahaa dhawaaqa iyo waliba wacyigelinta diiniga ah ee ku tacalluqda dadweynaha loo gudbinayo iyadoo Sheekh Cali Warsame oo ka mid ah culimada waaweyn ee gobolka Togdheer intii aan la tukan salaadii maanta ka hor halkaasi khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa uu ka soo jeediyay ayaa waxa inta badan salka ku haysay nabadgelyada iyo waliba waanooyin ku tacalluqa khudbadda munaasabaddan Ciidul Fidriga. sidoo kale waxa munaasabaddan maanta lagu tukaday garoonka kubadda cagta magaalada Burco lagu soo qaaday isla markaana ay ka sheekeeyeen culimadii halkaasi ka hadashay ahkaamta soonka iyo waliba arrimo kale oo ku halmaala diinta Islaamka. salaadan ciida maanta lagu tukaday magaalada Burco oo ku dhamaatay jawi degan ayaa waxay dadweynuhu isku salaamayeen jawi farxad leh iyo waliba erayo ay halhayd u ah guud ahaanba bulshada caalamul islaami maalintan oo kale oo ay ka mid tahay ciid mubaarak macal ciidayn iyo waliba hal ku dhigyo kale. meel kasta uu joogo uu faraxsan yahay horta waxaan ku salaamayaa dhammaan dadweynaha reer Somaliland meel kasta uu joogo ciid mubaarak. inta kadib haddii aanu nahay dadweynaha reer Burco dhammaantayo waxaan wada leenahay maanta ciid mubaarak kuwa tahriibay kuwa dhoofay kuwa baasaboorka qaatay kuwa Itoobiya ku xiliban kuwa Liibiya ku xiran intaba waxaanu leenahay ciid mubaarak intiina xiliban ilaahay haydin yasiro intayada kale fiyaybidin ilaahay nabad iyo barwaaqo sidaa loogu aniga yaryarkayga waa kuwan yar baan saaka daadahaynaya waxaan ka keenay xaafadoodii waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaan dadweynuhu meel joogo reer Somaliland ahsan عليك ahsan butaas ahsan nolol fiican baan idin rajaynaya dhammaanteen ba madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo hooyada koowaad ee dalka waxaan hambalyo u diray Cali Ismaaciil Cismaan saaxiibka Cabdirasaaq Salaad Cali saaxiibka Bashiir iyo dhammaan akhyaarta kale ee kala duwan waxaan iyagana aad iyo aad halkan uga salaamayaa dhammaan shacabweynaha reer Burco wasiiradana la ciiday waxaan leeyahay kullu caam wa antum bi alf khayr. ciid mubaarak waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda reer Somaliland oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo marwadiisa koowaad dhammaan xukuumaddiisa wasiirada golaha baarlamaanka golaha guurtida waxaan kaloo ka salaamayaa dhammaan faamigayga oo ugu horeyso hooyaday Hinda Faarax Xuseen oo aad u jecelahay abahay Khadar Maxamed Jaamac dhammaan waxaan ka salaamayaa ummadda islaamka meel kasta ay joogaan khaasatan ama gaar ahaan shacabweynaha reer Somaliland oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland. inta kadib waxaan ka salaamayaa family-gayga abahay baa ugu horeeya hooyaday baa ku xigta dhammaan walaalahay waxaan kaloo ka salaamayaa ayeeday xaashibada xaaji warsame habaryartay abtiyaday Cali Maxamed oo xanuunsanaya ilaahay waxaan uga baryayaa ilaahay caafimaad saraacna siiyo
waxaan ka salaamayaa asxaabteeda oo dhan ugu horeeya jaamac Salaamaan Nuur Cabdibaasid Aadan Cabdi Garaad Khadar Cabdi Cali Cilmi dhammaan kuma soo koobi karo halkan waxaan kaloo ka salaamayaa TV-ga qaranka oo ugu horeeya kabtan Cabdisattaar Samri marwada koowaad ee wadanka Amni Waris madaxweyne ku-xigeenka Saylici iyo marwadiisa dhammaan shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak كل عام وأنتم بخير. عيد الفطر المانت لقوا تكذا مقالة برعا يا سيدو كلا يجنا وح لقوا تكذا جواب بدن وكم إذا مقالة برعا سيدا مسجد كوجوين مقالة برعا مسجد الجامع سيلد حولها حرونتها قومها قرون كمل ترجع مقالة برعا وليبا جواب كله kuwaas oo dhammaantood baa isjowi degan ku soo dhamaatay salaadaasi ciidamada booliska ee gobolka Togdheer ayaa iyaguna qayb lixaad ka qaadanayay maanta munaasabadan sidii ay ammaanka u sugi lahaayeen iyagoo qof kasta oo galaya garoonka si habsami oo degan u baarayay isla markaana ku xayndaamna guud ahaanba goobaha salaadaha maanta lagu tukanayay sidoo kale wararka ka imanaya deegaamooyinka Durruqsi Baladhiga Qoryaale Oodweyne Qorulugud Waraabeeye iyo waliba kuwa kale ayaa waxa ay sheegayaan in guud ahaanba maanta loo dareeray munaasabadan Ciidul Fidriga isla markaana ay dadweynuhu si farxad leh ay ku damaashaadayeen deegaamadooda guud ahaanba magaalada Tamburco iyo gobolka Togdheer ayaa maanta marka la isku soo xorsho ay munaasabadani uga dhacday si degan iyadoo ay dadweynuhu ilaa saaka ilaa xalayto ay u diyaar garoobayeen una dabaaldegayeen xuska munaasabadan Ciidul Fidriga Cabdisattaar Cabdillaahi Cali shabakada caalamiga ah ee Caynaba News Burco